Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta kusoo dhawaada channelkayga Mataanka Official. Aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Salaan kadib kulli Mataanka channelkayga magaciisuna waa Mataanka Official. Saan rajeynaya dhalinyaro fara badan way garanayaan. Intaan garanayna waxaa la nagu soo dhawaada channelka kulli waa channelkiini ma garanaysaa. aad iyo aadna waa idin salaamaya. Maanta waxaa inoo wada maanta maxaa wadaa? Maanta waxaan wadaa sheeko yaroodii aniga kulli ani ahaanteeda aan la yaabay. waxyaabaha qaar markaa aragtid waad la yaabaysaa moogtahay. waxyaabaha qaar markaa aragtidna waad ku farxaysaa, waxyaabaha qaarna waad ka naxaysaa. marka sheekadan aan la yaabay baan jeclaystay inay idinka idiga sheekeeyo. ma garateen? saan rajeynayo waad fahmi doontaan sheekadan aan ka sheekeynayo. haddaba waxaan rajeynayaa inay noo bilaabi doono sheekadeena. sheekadeena intaan bilaabin asxaabta dhammaantiin waxaa idin leeyahay horta idinkoo raaliya subscribe-ta waa xaggiina, like and share and comment kule idinkaan liga rabaa. dhiirigelintuna waa halkiina waa garanaysaan. aad iyo aad baan idin salaamaya asxaabtayda qaaliga, halkaasaad ku qorantiin. kule gacanta waa qalfoofe ma garanaysaan, qalbiga idiga salaamay. haddaba waxaan rajeynayaa hadda inay noo bilaabi doono sheekadeena. waxaana ku bilaabmaysaa sida tan. maalin maalmaha kamid a waxaa dhacday reer wiil iyo gabar isqaba 10 sano isqabeen. 10 sano bay isqabeen. wiilku gabadha markuu soo guursanay waxay ahayd gabar qurux badan oo aad iyo aad u shidan dhan kastaba. maxaa haddaba dhacay? wiil iyo gabadhii 10 sano isqabeen. maalin maalmaha kamid a wiilku wuxuu arkay gabadhiisii oo isbedeshay, xaaskiisii oo isbedeshay. kadib baa wuxuu ku dhahay niyadiisu, iyada muu weydiinin laakiin niyadiisu iska dhahay, xaaskaaga awal saan ma ahayni maxaa ku kalifinaysaa noqoto. dabagal fara badan buu ku sameeyey. kadib wuxuu ogaaday inay gabadhani ay cuno badan tahay, ayna waxba badayninba. macnaha wax walba ka hor yimaad way cunaysaa. macnaha waxaan ka wadaa gabadhi way buurnaatay, qaab dhismeedkeeda hore ku yaqaano way isku bedeshay, waxay noqotay qof buuran. ragga qaarna waxaa is malaha buurnida waa neceb yihiin, maxaa dhutoola gabadhu isbedesho. qof waa bili-aadam wuu isbedeli karaa, laakiin sheekaa noo wadaa. kadib wiilkii wuu labalabeeyey, isagaa dib iskugu noqnoqday, wuu ka shalneeyey, fikir buu iska galay. waxaan loo qorin waxaan loo weydiin buu iska galay. wuxuu yimaadaa guriga gabadha jikada ku jirta, wuu baxaa. markuu baxay wuxuu arkay iyada jikada ku jirta, isaga u hagaajinaya. isma oga isagu macnaha in dee qof markuu jinku wado ma garanaysaa, oo ina jimba kuu sheekeyna ku hornay waxaan saan weye ma garanaysaa. adii ninkii jimba watay marka iyo dee wixii ku jiray macnaha qooyinkiisa. kadib waxaa dhacday, waxay tustay un gabadhiisa, xaaskiisa ma ka tustay inuu yidhaahdo way isbedesho, inuu yidhahdo sidanaa dhacday, inuu yidhahdo waxaan maxaa ka qaldan. markii dambe wuxuu siriniyo gabadhaadan waa tan buurnaatay, fool xumaatay. isaga xaggiisa dee macnaha way kala fool xumaatay, macnaha sida hore ku yaqaana ma. gabadh wuxuu yaqaanay shidan oo dhexdeedu kaala aragtaayo cilmigeedu bad yahay dee buu yaqaanay marka hore. haddana wuxuu batay gabadh kale. wiilkii waxaa dhacday, wuxuu ahaa nin taajira, lacag fara badan buu haystay. lacagta faraha badan dadka way waashaa. lacagta faraha badani dadka way waashaa, meel aanad ogeyn bay kaa tuuri doontaa. ninkii dee wuxuu istirniyo gabadha waa tanaa way burnaatay, calinkan dhagashayo, indhuhu ma qabanayaanoo waxba isku niyeystay ma garanaysaa. kadib ba wuxuu sameeyey gabadh kale iska raadsaday, iyadana muu sheegin. gabadh kale iska raadsaday, gabadhii kale isbarteen. gabadha kale naga aragtay in lacag haysto ninkani, maalin kasta shopping u geeyaa. ninkan hadda la soco xaas buu guriga u joogta. taan ma lama daneynaya macnaha, taan cusub ee shidan ee hadda dhexdeeda nimcada taa laga isleeyahay bal garanaysa. kadib ba gabadhii ay sabarteen, gabadhiina way fahansan tahay ninkan inuu lacag haysto. wixii way ka gurtaan oo u sheekaysaa, way ka gurtaan ma garanaysaa. waxay lacagtii ka wadaba ninkan wuxuu soo istaagay. wuxuu tagay xaaskiisa, wuxuu ku yiri heblaayo dhegeyso,
anigu ma ku rabo sidii hore ahaan jirtay ma tihid wax fara badan baa iska kaa bedelay saa kadalik waxaan jeclaystay inaan ku furo gabadha waxay tiri iyo waxa u haysay markaa wiil yar waxay tiri anagoo ku wanaagsan oo guriga markasta kuu joogo oo raalliya ku ah markaa guriga timaada wax walba oo u baahan tahay guriga ka aragtid maanan kugu buuqin waxaad loo keentaan bisinka u qabano anoo og inaad lacag haysataan lacag aanan ku weydiinin ani inankaaguna aan raalli kaa nahay aanan ku jecel nahay maad rabtaa inaad na furtid macnaha inaad na eridid suu yidhi haa gabadh kalaan bartay qurux leeyaah oo caynkana saana u taalla waxba iska eridid ma garanaysa waa taqaantaa gabadha marka gabadh lasoo hadal qaado gabadh kalaad baratay haa hayo iyo dhaaf inagu kala kaxee macnaha ninka waa iska tegi gabadhii kale uu guri geystay gabadha kale markaa uu iskala joogitay way jacaylkooga sii dheeraaday gabadha kale jacayl ma jiro wax jacayl iyada xaggeeda ka tan dama bartay ma jirto tan un bay daba socotaa war ninkii waxay la socotay markaa ismaysan guursanin way shakaysan jireen gaxaaskiisa horena uu isku soo furay gabadhii kalena ninkan bay la socotaa ninkanna intaa waxa kharashkiisa u hadhin baa laga sugaya macnaa marka la yidhahdo markuu yidhahdo eber baan ahayo ma garanaysaa jaabadkeeda shilin kuma jiro bay leedahay tan kalena inaad cabdo inagu kala kaxay soo wadataa ma garanaysa kadib baa waxa dhacday sida tan gabadhii kale baa maalmaha kamid u wacay telefoonka ka qaban weyse haddana qoraan buu qoray oo soo jawaab weyd markii dambe ka qabatay ku tiri waxma kuu sheegaa maraan baa tahay aan aqli lahayn anugu kuma jecli waxaan kaliya kula socday lacagtaasi ahayd baahiba lacagii haysay hawla ay kala furfurnaa waxaan raadinayay qof macnaha markaa wax haysta jeebkiisu noqon yahay nasiib wanaag adaan ku arkay adigan jeebkaa ugu qoyanaa walaalo intii aan wada soconay inoo weekaatay ku tiri ma garanaysaa ninka murugo buu galay iyo dee dabaka walwal xaaskii horena way kala tegay ilmihiisina iyo xaaskii ilmihiisina uu iska fasaxay isagiina hadeer wuxuu ku jiraa xaal kale lacagtiisi way dhamaatay bangiyadiisi wax ma ku jira dawa ninkii intaas taajirka ah waa eber meel wada wax ku haysta ma lahan talaa ku caddaatay markay talaa ku caddaatay baa waxaa dhacday inuu isweydiiyo yidhaahdo xaaskaagii ilmahaagii hore u tag bal inda adeega day calafkuna waa jiraaye hayloobin ninkii wuxuu sameeyey inuu dib u noqdo oo u tago ilmihiisii iyo xaaskiisii hore waa tegayoo gurigiiba ku garaacayo yaa ka furay ilmihii yaraa uu dhalaa ka furay markuu saa uga furo arkin waa biisha buu ku yiri kii yaraa baa ku dhahay maxaad soo doontay adiga naga tegay hadeer maxaa naga soo doontay adiga muxuu ku hadlayaa ilmaha laguma jawaabin guriga aqalku hore usii galay naagtan uu tegayo nin kalaaba qababa naagtan uu lahaa waad burnaad waad fuxumaad maxayba kana nin kale u tahay qalanjo marugo oo cid haysata la hayd nin kana ka faa'iidaysta oo soo galay macnaha ilmihii uu dhaafay guduhu galay gabadhii way soo dhaweysay soo fariiso shaah iyo xawsanka karisay u fariisayo oo u sheekeeyo wuxuu ku arrinkaasa jirayo waxay ku tiri anagoo ku jecel oo ku baahan oo ku rabna oo aqalkeenna uu iska deganaa wax bala buuq aysan jirin soo igama tegin suu yidhi haa hadda maxaa markaa iga rabtaa te wuxuu yidhi aan susaan noqono dhegeysa ku tiri waxaad igu tiri waad faal xun tahay waxaad igu tiri waad faal xun tahay waad buurnaatay waa isbedeshay waxbaad igu tiri nin baa hadba waxsaan ahaaba igu qaatay oon isaga u ahay qalanjo hadeer qalanjo 15 jir hooyada kasoo hoos baxday baan u heewla ee ku tiri ma garanaysaa ninkii qisadaas qabsatay ee weliba oo qiso faal xun oo wanaagsanayn ifan hataa haddaad lacag haysatid oo marka hore gabadh guursatid ha ku xisaabtimin lacagta aad haysatid isku day mar kasta inaad qofka aad macnaha nolosha la wadaagtid ama aad la wadaagaysid aduu ahaata daacad adduunyadu iyadaa waa wax yar iska ah adduunyadu iyadaa waa wax yar iska ah waa farkuturis waa maalmo ma ogid beri inaan gaari doono ma og maanta galab gelinka dambe inaan dhiman doono ilaahay waa og laakiin saas ay tahay dhalinyarada meesha igu jirta asxaabteeda kulligood ciddi channelkayga subscribe u saaran tahay
iyo cid hal toona soo saari doontaba wixii uu videogaygaasi gaadho oo dhalinyaro Soomaaliyeed wiilal iyo hablaba waxaan kula talin lahaa inay iska taxadiraan oo ay iska ilaaliyaan waxyaabaha aan wanaagsaneyn nafsigu waa jira marka sheeko saas ku soo dhamaatay wiilkiina da kulli qisadaas gaadhay idinkaan la jeclaystay inaan idiga sheekeeyo aad iyo aad waan idin salaamay asxaabta laakiin qof kasta waxa uu haysto iyo wuxuu ahaan jirayba qof bini'aadanku wuu isbedelaya dashala waad marka hooyada ay ku dhalaysay ilmo yar baad ahayd waad weynaad hadeer haye maxaad ilmo yar u weynaad ma lagu oranaya macnaha waa maya wax walbana way isbedelayaan sidii aad ahayd ma ahaanaysid haddaa buurnid wax laga yaabaa inaad dhuunaatid haddaa dhuuban wax laga yaabaa inaad buurnaatid kolba inuu waqti isbedelo kolba wixii sida uu jeebkaagu yahayna marmarka qaarkood way noqotaa laakiin hadduu jeebkaaga qoyan yahay dadka qaar uu jeebkaaga qoyan yahay ka daaya khiyaaligan nolosha aad ku jirtaa wanaag way helaysaan gabadh wanaagsan way helaysaan wiil wanaagsan wixiiba inagan baa isku ah asxaabta dhammaanteed baa idin salaam waxaan leeyahay maalin wanaagsan